adon tabarhayn talanaan hayn oo talaab gabay kolka tooyoy niman turuq yale oo tafaabulan oo aan ku turin ku taxataan illa gula tago tashawayna waa lagu taritayo tashawayna waa lagu taritayo kulanti wacan oo wanaagsan khayrta hawada naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaada mar kale iyo qaybtii saddexaad ee barnaamij aan ugu magac darnay fikirka federaalka Soomaaliya kaasi oo ah taxane aynu ku faaqideyno soo ifbixi federaalka Soomaaliya qaybta saddexaad ee barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa nidaamkii koowaad ay soo jeediyeen qubaradii reer Yurub ee midowga Yurub oo xil saaray ka tala bixinta nidaamka Soomaaliya u bedeli kara dawlad dhexe oo dalka oo dhan hanata kaasi oo ah nidaamka loo yaqaan confederationka ama midowga dawladaha qubaradii reer galbeed waxa ay soo jeediyeen afar nidaam oo saddex kamid ah ay dhul gobol ama deegaan ku salaysan yihiin halka midka kalena uu ku salaysan yahay kala duwanaanshaha bulshada iyo awood qaybsiga dhexmari kara qubaradii reer Yurub waxa ay warbixintooda ku soo bandhigeen su'aal uu qof walba oo arrintan ka hadlaya isweydiin lahaa kadibna waxa ay raaciyeen jawaabtii ku haboonayd markii loo eego ujeedada warbixintooda imise dawladood ama dawlad goboleed ayaa loo qaybin karaa Soomaaliyadii hore oo iyaduba ka koobnayd British Somaliland iyo Italian Somaliland su'aashu waa ay fududahay laakiin jawaabtu waa ay adag tahay ayay qoraalkooda ku xuseen qubaradii reer galbeed waxayna inta raaciyeen Soomaalidu waxa ay door ama qiyaar u leeyihiin saddexdan nidaam ee soo socota midkood in ay sameeyaan in ay dib u dhisaan Soomaaliyadii hore oo midaysan in ay abuuraan wadamo midoobay oo ka samaysma Soomaaliyadii hore oo la kala qaybiyay ama qayb loo jaray in ay sameeyaan laba dawladood iyo in ka badan oo aan xiriir dastuuri ah lahayn ayay uga jawaabeen su'aashii ay isweydiiyeen qubaradii reer galbeedku inta kadib qubaradii reer galbeed waxa ay soo bandhigeen in haddii Soomaalidu ay isku raacaan in laga aasaaso Soomaaliyadii hore nidaamka confederationka loo yaqaano oo ah dawlado kala madax bannaan oo ku midoobay dana qaasa sida difaaca lacagta iyo ganacsiga oo nidaamkaasi yahay mid muhiim u ah Soomaalida haddaba waxa isweydiin mudan nidaamka koowaad ay soo jeediyeen qubarada reer galbeedku waa nidaam noocee nidaamka confederationka loo yaqaano ama midowga dawladaha waa midow ka dhaxeeya dawlado kala madax bannaan oo u midoobay ujeedooyin guud oo saldhig looga dhigo heshiis dawladahaas u dhaxeeya dawladaha midoobay waxa ay iska gabaadsadaan arrimaha xasaasiga ah sida difaaca xiriirka dibadda ganacsiga gudaha iyo lacagta dal ahaan iyo dad ahaanna waxaa loogu talagalay dalal taariikhdooda asalkuba ay kala duwan tahay dad yowgooduna ay kala duwan yihiin balse isku mandaqad ku yaala waa kan Xasan Cabdi Xayle oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee goobjooga u ahaa bandhigii warbixinta ay diyaariyeen qubarada reer galbeedku oo sharaxaya nidaamka confederationka waxa uu yahay iyo in Soomaalida uu nidaamkaasi ku haboon yahay iyo in kale runtii markii system yani oo dawladnimo oo confederal ah Soomaaliya ugu yeeray inay noqdaan ma garan karo waxa oo salbiga u noqon kara dawladda confederaalka waa dad aan waxba wadaagin dadnimo iyo bulsho wala inay juqraafi ahaan meel ku gadeeyeen laakiin wixii isku leeyahay oo dawladnimo ah waxa u dhaxeeya macna fawaariq badan ama farq badan u dhaxeeya sababtoo ay ku heshiinayaan inay confederal ahaadaan ay dawlad halsteen istaan kasaba oo natigaar isu maamusho laakiin calanku uu ka mid yahay maxaliyada ciidanku uu mid yahay lacagtu uu mid tahay siyaasada arrimaha dibadda ka midaysan difaaca ka midaysan sidii ay Yugoslavia hajirto kale ama loo aqoon jiray Czechoslovakia oo hadda jeeska iyo kala baxay Slovakia dad noocee ayaa loogu talagalay ama dawlada caynkee ayaa samaysan kara nidaamkan la yiraahdo confederationka ama midowga dawladaha midowga dawladaha waxa samaysan kara oo kale misan hadii wax ku fudud soo qaado bari waxa jiray Jamal Abdel Nasser iyo dawladda markaas ka dhismay Syria kale iyo in soo dejiyay dawladda Carabiga confederate ee Iraq iyo Syria iyo Masar iyo Lebanon
sidaasay ahayd adiga horaadkii dunida anagu aan naqaano India oo intaasoo qowmiyadood iyo intaasoo luqadood leh anaga heleen Hindiya mahay system federal yes laakiin confederate ma qabno wadinka marka soo qaado macnaha yani soo qaado sunta confederate waxa ahaa بدي هذا مراكز كبيرة لبيه طبعا كأها وصلت إن سيسي والله كان قرن تبنات يعني جريس أو إنجليز يعني إنجليز كواس بحي وحكم ترى وهايو بدل ما يجي مراكز كثير هاي إنجليز هم اللي حد نسي أقصد هتارا بس هتارا أساس هتارا عايش هتارا إنجليز وحكم ترى كل شيء هذا هو فدرال يونايتد ستيتس أوف أمريكا ودولة فدرال وفدرال وهذا فدرال كونفدريت كي أقصد هاي فدرال كي سيفل وور كي كوبابا أو كوبربوي يمكن كونفدرها أو قصصية ريمكو إبراهيم لينكولن فدرال كاس إجلال أيوة حبنا قال أو دين عود قصاصا ومرة من هذه الجل لكن ما كي اللي بوليس أو كفرت اللي بوليس وكل يوم بوليس الحالات الكالية كونفدريت كها مرة بأمريكا إني تلقوا وحلو أما كاركود وكل فكروا ما أنت سوي حاجة الناس كي لقوا رعي أو عنولاني أو نقول معنا سوماليا مرة كم حبون وحكم فريليات حتى بكتب وانا كان بالحميدي ناس كي بشركة عروسة مركة وجري ودمنا الطائرة سويتي في سوماليا يكون حبونانا يكون فريلي حتى أو لقد الله سومالي لان سومالي وحاسويتي بري محمد إبراهيم قال إنه حدنا في الصومالي سكر الله أسبوعنا في ذكر يراجل وأبدنين أما حتى الجرارة قال وحكك قضائي أو جرائك قال بي الصومالي مع صومالي وحي مرمي ديارو أما كنت فريد أما خيرا لبدا في الديارو معها مدون ياني إنينو دولة دانو مدون ياني إنينو دولة دانو ويديقنا دردوران جري ويدانا هودا سميسان جري ويديقنا دردوران جري ويدانا هودا سميسان جري intaas waxaa ku dhanagaysayaal qaybtii saddexaad ee barnaamijka ayaa fikiray federaalka Soomaaliya oo aan maanta ku soo qaadanay nidaamkii koowaad ee ay soo jeediyeen qubaradii reer galbeedka ee diyaariyay warbixintii salka looga dhigay federaalka Soomaaliya anigoo Maxamed Axmed ayaa idin la socodsiinayay tan iyo intaynu qaybta afraad ee barnaamijkan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo tadadayo ما دخبو واتو صالح وحكو ترنسدا هايسكا تورينا مستواوعا كبر لإيدان والتسونا لسه تاقيو تروع عنبان والتسمينا الله الله بطلو ومتانا تينو رون نوت المانو نبو تاقر نشوينا يا والله بوتا للكويو نشوينا يا والله بوتا للكويو